بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أخيرت أيضا سلام سودو هذا وما ننكل أيها عشر قصب هدي عشري هور أدلس سعودي waxaan kusoo dhex jirnay four groups ama kooxaha cunooyinka ay u kala baxaan marka tobankii cunood aan u kala qaybinay baan si taxane ah aan usoo daadihinayni waxaan kasoo hadalnay qaybta koowaad iyo qaybta labaad maantana hadduu ilaa yiraha lambarka saddexaad baan ka hadlaynaa oo loo garanay nuts and seeds looska iyo abuurka marka seedska oo abuurka loo garanay inay dadka qaarkiis miro ay u garanayeen way dhici kartaa marka laakiin seedska waa miraha waaweynka maxaan ku dhahaa abuurka ku dhex jiro baa seeds loo garanay marka looska dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa in ay cunno oo muhiim ah ay u arkin oo maaragtay waxa iska fudud ama aan jirka muhiim weyn aan u lahayn in ay u maleeyaan marka saas maaho looska waa cunno aad iyo aad muhiim jirka u ah nafaqooyin aad muhiim u ahna jirka siiyo marka dad yar baa ka faa'iidaysta hooyaalka qaar ama aabayaalka waxaa laga yaabaa caruurtooda porridge-ka magay u hagaajinayeen inay ugu daraan way dhici kartaa dad saa yeela waan aragnay qaybta kalena waad garanaysaan ragga maaragtay caleenta cuno baa maaragtay isticmaalo marka faa'iidooyin badan bay leeyihiin nafaqooyinka laga helan waxaa ka mid ah proteinka ka mid oon kasoo hadalnay fiber ayaa ka mid oon kasoo hadalnay asagana qaybta kaloo laga helaa nafaqooyinka waxaa ka mid ah unsaturated fats waxa loo garanay xayrta ama subaga laba baa loo kala qaybiyaa saturated fats iyo unsaturated fats so unsaturated fatska jirka wax dhibaato uma geysto marka bal iska daa wuu nafaqeeyaa energy-ga iyo wixii kaloo jirka u baahan yahay inuu siiya laakiin saturated-ka daas wax loo isticmaalo idan gooni ugu hadli doonaa hadduu ilaa yiraha ayaa jirka in dhibaatooyin ay maarata u keensadaan laga yaabo sidii dhiigkarka camal waxaa kaloo laga helaa fitamiino badan oo si vitamin E camal leh waxaa kaloo laga helaa maadooyin badan ama macdama minerals waxa loo garanay oo ka mid magnesium zinc ionkii kasoo hadalnay oo dhiigga laga hagaajinayo very important markasta ion baan aad baan ugu celceliyaa sababtoo dad badan ama caruur badan ama hooyooyin badan ayaa dhiig yara maxaan ku dhahaa bay haysataa marka waa muhiim ionka markasta in laga hadlo marka maxaa ka mid nutska ama looska maxaa ka mid qaybtan hadda aniga geeska africa loo aqaana waxaan aad u isticmaalnaa peanuts and ground nuts laakiin magaalooyinka weyn waa laga helaa sida macadamia nuts walnuts brazil nut cashew nuts marka way badan yihiin laakiin anaga gees africa qaybta aan isticmaalno badi waa peanuts and ground nuts kuwaasoo dhulka gudihiisa ku abuurma qaybahana hadda ay ka dhawaajina laamanka korkooda bay ka baxaan marka seedska ayaga waxaa ka mid ama abuurka oo muhiimka jirka u oona la helo badi waxaa ka mid pumpkin seeds ama bocorka abuurka laga dhex helo oo maalmahan haddii baraha bulshaha aas kolba la socotay soomaali badan ay xayeysiinayso waxaa kaloo kamid sinsinta abuurkeeda baa ka mid muhiim waay waxaa kaloo ka mid oo dadkan hadda faa'iido weyn ay u arkin qaraha abuurka ku dhex jiro haddii qara aad cunayso oo abuurkaada aad la cunin faa'iido badan ayaa kaa muuqan saas ka warqab marka qaybahaas bay u kala baxaan marka nutska iyo seedska ama looska iyo abuurka waxa isku koox looga dhigay waxaa waaye nafaqooyinka jirka ay siinayeen baa isku mid ama aada iskugu dhow marka sidaas laajligeed ayaa hal koox laiskugu gey marka maxay tahay shaqada ay jirka ka qabtaan saddex baa ugu weyn waxay ka hortagaan cudurraha ku dhaca wadnaha waxaa kaloo ay ka hortagaan macaanka type 2 diabetes loo garanay waxaa kaloo qayb libaax leh ay ka qaataan allahu mustacaan dheef shiididda cunnada markii jirka ay gasho oo maxaan ku dhahaa jirka gudihiisa ay gasho baa shiiditaanka la shiidi oo nafaqadii laga soo bixini bay qayb weyn ay ka qaataan marka waxaa kale oo ay aad uga qayb qaataan allergiga camal bay ka hortagaan jirka waxaa dhici karta haddii waxyaala aad maaragtay u baranin maaragtay ay u taabta ama uu maxaan ku dhahaa dhib u geysto in jirkii falcelin u celiyo oo reaction u hagaajiyo marka inflammation waxa la dhahaa baa dhici karo inuu jirka barara ama allergy u develop garay waxyaalo noocaas baa dhici karo marka falcelintaas jirka u falcelini dhibaatooyinka ka imaadi
bay maaragtay looska iyo abuurka ay ka hortagaan. marka faa'iidooyinkaas saddexda ayaa ugu muhiimsan oo jirka maaragtay ay ka dhex qabtaan. marka dhowr shay baan rabaa inaan ka dhawaajiyo. kow, looska markii la cuni toxobta koro ama qolofta kore in la tuuro maaha, ama in laga bixiyo maahan oo laga jijibiyo. marka waa in lala cuno. looska nafaqadiisa ama nafaqooyinka ugu badan waxay ku jiraan qolofka koro. marka looska markaad cunayso waa inaas toxobta koro aas la cunto. waa kow. shayga labaad, looska ama abuurka markaad cunayso in si bariiska camal aad ugu dharagto maaha, no. marka cunigu leeyahay saas lagalama jeedo. marka snack baad u isticmaali kartaa. snack waxaa waaye cunto fudud ahaan baad u isticmaali kartaa. 4 saac camal tusaale badarkiis shaah cabi lahayd loos baad cuni kartaa, ama badarkiis shaah cabi lahayd maxaan ku dhahaa pumpkin seeds baad cuni kartaa. casrika sida camal galbeedkii markay shaah cabi lahayd ama wax kale hagaajin ama wax kale cuni lahayd looska ama maxaan ku dhahaa abuurka waad cuni kartaa. marka in qiyaas badan lagu cuno maahan, khaasatan kuwan qaybtan abuurka waa in qiyaas yar laga cuno, waa inay ku filan tahay jirka. shay kale inaan ka dhawaajiyo aan rabo waxaa waaye caruurta ama cidda si guud ahaan markii boorashka loo hagaajinay ama cunto kaloo fudud loo hagaajinay waa loogu dari karaa looska in la jijibiyo, waa lagu dari karaa. ama ma ahaan markii lasoo shiidi oo mashiinta la geyni baa lagu soo dhex dari karaa oo lagu soo shiidi karaa. marka enrichment maa lahaa nafaqada cuntadaas bay kor usoo qaadaysaa. marka waa fahanteen baan u malayni. looska marka aan la sahlanin shay sahlan maahan. waan isku fududahay, cunitaankiis way fududahay. adoo iska socda, adoo gaari saaran, adoo lugayni baad iska cuni kartaa. marka khaasatan caruurta iyo hooyaalka maxaan ku dhahaa culus ama kuwa caruurta nuujinayaan ha looga dadaalo. cunooyinkana ha looga daro. caadada cidda oo yani cunooyinka cidda laga cuni maxaan ku dhahaa ha ka mid noqdaana. marka aad iyo aad baad umahadsan tihiin. wixii su-aal ama aad fahmi weysaan comment igu soo sheegay insha allah. waa mahadsan tihiin ilaa kulankeena dambo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.